waa laga yaabaa intiina badan inay ku arkeen baraha bulshada oo maalmahan si weyn u dhex socday waa Haashim Maxamed Ismaaciil Bulaale oo la sawiran aabihiis Maxamed Ismaaciil Bulaale. Haashim waa duuliye waxa uu kadis ama surprise cajiib ah u sameeyay hooyadiis oo lagu magacaabo Anisa. Qorshaha waxa la abaabulay aabihiis oo hadda la sawiran iyo walaalkiis ka yar oo la yiraahdo Amiir. Haashim hooyadiis weligiis ma aysan raacin diyaarad uu isaga pilot ama duuliye ka yahay. marka isaga iyo qoyskiisuba waxay abaabuleen in hooyada lagu sameeyo surprise oo mar uun ay raacdo diyaarad uu wiilkeeda duulinayo. Haashim waxa uu ku nool yahay dalka Spain, qoyskana waxa ay ku nool yihiin dalka Denmark. marka hooyada waxa lagu sheekeeyay in la baxayo oo la soo booqanayo wiilkooda Haashim oo ku nool dalka Spain. inta kadib qoysku ay soo baxeen maalintii adigu la gaaray qorshaha safarka garoonka diyaaradaha ay yimaadeen. ugu dambeyn diyaaradii ayay soo raaceen, balse mar qura ayaa waxa si kadis ah sameecada diyaaradda looga maqlay codka Haashim oo markaas hooyadiis aysan marna ku fikirin in isaga uu yahay duuliyaha diyaaradda, maadaama uu markaas isaga la soo booqanayay sida loogu sheekeeyay. yacni hooyadii ayaa markay codka wiilkeeda maqashay ilin fara badan ka soo daadatay, way faraxday, way argagaxday, yacni surprise cajiib ah ay la noqotay. Haashim ayaa hadalkiisa ku bilaabay isagoo ku hadlaya luqadaha Deenishka iyo Ingiriiska in maanta uu aad ugu faraxsan yahay in rakaabkiisa ay ka mid yihiin qoyskiisa oo waliba si kadis ama surprise ah uu hooyadiis ugu sameeyay arrintan oo aysan ka warqabin. sacab fara badan iyo mashxarad iyo qaylo ayaa isqabsatay diyaaradii isaga loogu hambalyeynayay iyo qoyskiisaba. kadibna waa uu soo baxay oo qoyska ayuu u yimid oo qaybta dhexe gadaal u dhow diyaaradda ayay fadhiyeen. inta diyaaradda dhexdeeda uu soo socday oo dhan sacab fara badan ayaa diyaaradda is haystay. qoyska ayuu u tagay, hooyadiis ayuu soo siiyay. hooyadii aad ayay u faraxday oo dabcan uu u hambalyeysay, mana aysan filaynin mana aysan horay u raacin diyaaraddu isaga duulinayay. dadka diyaaradda saaran oo ku dhawaad rakaab gaaraya ilaa 200 ku dhow ayaa dhamaantood u hambalyeeyay. waxaase xusid mudan in dhamaantood ay ahaayeen dad dalalkaasi reer galbeedka ka soo jeeda ama dad cadaan ay yihiin. Haashim iyo qoyskiisa oo kaliya ay ka ahaayeen Afrikaan. marka kadiskaasi sidaas quruxda badan ayuu dhacay. waliba waxa xusid mudan in xilligii la qorsheynayay arrintan ay aad u adkaatay in hooyada ay fasax ka soo heshay shaqada iyo Haashim oo markaasi shiftiga xilligaasi diyaaradda soo galaya labadooda waqti inay isku soo beegmaan ayaa waqti badan qaadatay in la isku soo aadiyo. ugu dambeyn way u soo gashay arrintii sida ay rabeen ayay qoyska ugu dhacday oo hooyadii sidaas ay farxadda wiilkeeda ula qaadatay. aabaha wiilka dhalay Maxamed Ismaaciil Bulaale iyo wiilka yar dhowr mar hore ayay raaceen diyaarad uu Haashim duulinayay xilligii uu tababarka ku jiray safarada gaagaaban iyo diyaaradaha yaryar. laakiin safar caalami ah ama duulimaad caalami ah kan kaliya ayuu ahaa. dabcan farxadaas ayay qoyskas wada qaateen. waxa xusid mudan in aabaha uu ka sheekeeyay Haashim xilligii uu yaraa uu ahaa 9 jirka in maalin macallimidiisa ay weydiisay waxa uu jeclaan lahaa mustaqbalka inuu noqdo, isagoo ku yiri waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo duuliye. hase yeeshee macallimadii ayaa tiri ma noqon karaysid iska daa waxyaabaha kale farsamada kale waxyaabaha dalka laga barto waqtigaaga ku bixi, wax kale aad noqon lahayd ka fikir. Haashim oo niyad jabsan ayaa qoyskiisa kula soo noqday arrintii hooyadiisii aabihiis ayuu u sheegay. waxayse ugu hambalyeeyeen in markaasi uu noqon karo wax alaale iyo wixii isagu uu doono. waxay u sababaysay laba arrin. aabaha ayaa ka sheekeynayay xilli uu waramay BBC-da. waxa uu yiri marka ugu horeysa waxay u sababeynaysaa inuu ka soo jeedo qoys iska yar oo qaxooti ah oo markaasi dalkoodii ka soo barakacay, ka soo qaxay oo xaalad markaasi ayagoo yaraantoodii ama bilowgii qoyska aysan nolol sareyso ku nooleen oo ay dad qaxooti ah yihiin. marka labaadna waxay u sababaysay in waxbarashada duuliyanimada ama inuu qofka pilot noqdo dalka Denmark ay tahay waxbarashada kaliya ee lacagta lagu barto. dalkaas waxbarashada oo dhan waa free ama waa bilaash, laakiin waxbarashada
duuliyanimada waa waxbarashada kaliya lacagta lagu barto waliba lacag qaali ah labadaas ayuu sheegay aabuhu in markaasi macluumaadu ay u sababeysay ugu dambeyn waxa uu rumowday riyadiisii duuliyanimo waxa uu rumowday riyadiisii ahayd in qoyskiisa ay ka mid noqdaan rakaabkiisa waxa uu rumowday qoyska laftigooda riyadii ahayd in mar uun ay ka mid noqdaan rakaabka diyaarad u duulinayay Haashim